بسم الله الرحمن الرحيم كلام وعن وناسان داود يا halkan waa nuxurka wararka ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay qodobada xilligan ku daawan doontaana waxa kamid noqonaya wararkii ugu dambeeyay xilligan magacaabisa taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed waxaan kula wadaagi doonaa xogta kulamo xasaasi ah oo dhaxmara madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale ninka loo wada taliyaha cusub ee ciidanka booliiska Soomaaliya General Surub waa la dalacsiiyay sidoo kalena waxa dhagaha loogu dhibciyay in uu isaga tago guud ahaanba uu ka samro noqoshada ama in uu wali sii hayo xilka taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliya waxaan kula wadaagi doonaa wararkii ugu dambeeyay sidoo kale xogta ku gudama maxaa laga filan karaa kulanka dhawaan ay yeelan doonaan xubnaha golaha wasiirada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya waan kula wadaagi doonaa sidoo kale qodobada kale aad ku daawan doontaa barnaamijkeena waxaa kamid noqonaya wararkii ugu dambeeyay qaraxyo lagu diyaarinayo kulaadka magaalada Kismaayo laga hortagay isla markaana ciidanka Jubbaland ay cagta mariyeen ayaan kula wadaagi doonaa xogta kulan xasaasi ah meeshiis xasaasi oo ay kala saacidaan Soomaaliya sidoo kale Turkiga maxaa xilligan ka jira inta Turkiga oo burbursan doona isla markaana sidoo kale uu qaadan doono qayb ka mid ah dhulka iyo sidoo kale wax soo saarka Soomaaliya waan kula wadaagi doonaa Talyaaniga waxa uu hakiyay VC laga qaadan jiray safaaradda Soomaaliya ee Muqdisho maxay tahay VC-aasi maxaa lagu qaban jiray ayaan kula wadaagi doonaa nagu soo biro ka mid noqo saaxiibada ku xiran nuxurka wararka muuqaalka la garay share garow la sii wadaag asxaabta aragtayna sidoo kale qaybta faladan ugu reeb kuma santahay daawashada soo kala socodka wararkana hadiya jarba halkan waxa uu soo gudbi doonaa wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya caalamka waa hagaag waxaan ku hormarayaa maalintii Axadda ee la soo dhaafay waxa kulmay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre iyo sidoo kale ninka loo wada taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliya General Asad Cusmaan Diyaano waa Asad Cusmaan Cabdullaahi Diyaano kaasi oo ay kulankooda kaga hadleen xaaladii ugu dambeeyay dalka iyo sidoo kale magacaabista General Asad waxa loo sheegay in taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliya laga dhigi doono isla markaana loo magacaabi doono iyadoo taliyaha iyo sidoo kale ra'iisul wasaaruhu isla qaateen in guud ahaanba uu ansax yahay xilka loo magacaabi doono General Asad Cusmaan Cabdullaahi Diyaano oo isagoo horey uga soo tartamay inuu noqdo madaxweynaha maamulka Puntland sidoo kalena soo hogaamiyay ciidanka BSF-ta ee maamulka Puntland Asad iyo ra'iisul wasaaruhu saacado badan ay shir lahaayeen waxaana habeenkii Isniinta la soo dhaafo uu ballan uga sameeyay xafiiska madaxweynaha si ay isku arkaan Asad iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waana isarkan isla markaana waxa lagu heshiiyay in kulamada ugu soo horeeya ee golaha wasiirada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ay yeelanayaan lagu magacaabo General Asad oo laga dhigi doono taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliya General Surub oo ah hadda ninka isagu haya xilka ugu sareeya ciidanka booliiska Soomaaliya waa la dalacsiiyay isla markaana waxa laga dhigay sareeyo gaas oo ah darajada ugu sareysa ee uu xilligaani ama darajada labaad ee ugu sareysa taasi oo macnaheedu uu yahay ama wasiir ku xigeenka gaadiidka iyo duulista hawada dhakabdhe oo u laabo oo calaashan macnaheedu ay kala jeedo ciidanka booliiska iska ulow dalacsiin iyo sidoo kale in aad xilka aad rabto hadda lagu siiyo ayaa lagu damana qaadaya laakiin xilka taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliya ka wareeg sidoo kale Asad waa la magacaabaya waxana loo magacaabaya taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliya marka hadda uu ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ka soo laabto dalka Mareykanka ama waxa macquul ah in ra'iisul wasaare ku xigeenka xukuumadda Soomaaliya Saalax Axmed Jaamac uu magacaabista taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliya ku dhawaaqo kadib shir guddoon oo sameyn doono oo dadkaasi ama uu magacaabi doono taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliya isagoo gudoomin doona shirka golaha wasiirada ee Khamiista soo aadan ama maalmaha kale ee xiga sida ay sheegayaan dadka ka faalooda arintaasi dadka falaqaya arrimaha amniga waxa ay sheegeen in Asad Diyaano uu amniga caasimadda wax badan ka bedeli karo haddii lagu la shaqeeyo mas'uuliyadda loo dhiibay laakiin dadka qaarkood waxa ay tilmaamayaan inay sii fogay doonto Saciid Cabdullaahi Dani magacaabista Asad Diyaano maadaama Xasan Sheekh Maxamuud oo madaxweynaha Soomaaliya hadda lagu eedeeyo inuu inta badan kala tashan xilalka beesha dhexe oo uu ka soo jeedo madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani dadka loo magacaabayo inuu san kala tashan laakiin bedelkeeda uu kala tashay ra'iisul wasaaraha Xamse Cabdi Barre haddana waxa laga dhulsugayaa sida ay wax noqon doonaan ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya kuwa Jubbaland oo maanta howlgallo culus ka sameeyay qayb ka mid ah gobolka Jubbada Hoose ayaa ka hortagay weeraro qaraxyo ay soo maleegayeen maleeshiya ka tirsan kooxda Al-Shabaab ciidamada ayaa howlgalkani waxay si gaar ah uga fuliyeen aagga tuulada laagta caanoole oo ay miinooyin ku aaseen xubno ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab saraakiisha howlgalka horkacisay oo ka baxay Buulaha ayaa sheegay inay ka war heleen qaraxyadaasi kadibna ay ku guuleysteen inay ka saaraan wadada ayna qarxiyaan sidoo kale waxa ay sheegeen in ujeedka Al-Shabaab uu ahaa qaraxyadaasi inay ku dhibaateeyaan dadka shacabka iyo ciidamada isticmaala halkaasi xaaladda aad mid degan waxaana ciidamada
huwanta ay sii wadaan howlgaladooda si ay uga hortagaan duulaan uga yimaada dhanka kooxaha argagixisada. Ciidamada gobolada Jubbooyinka waxay weli ka wadaan guluf dagaal oo ka dhan ah Al-Shabaab, waxaana badanaa ka dhacay isku dhacyo u dhaxeeya labada dhinac iyada oo howlgaladii ugu dambeeyay lagu jabiyay maleeshiyaadka ka tirsan Al-Shabaab kadib dagaallo ay la galeen ciidanka Jubbaland iyo kuwa dowladda Soomaaliya. Inta badan xoogaga Al-Shabaab ayaa qaraxyo u dhiga kolonyo ciidamada dowladda ama kolonyada ciidamada dowladda ee kala kooshay deegaanadaasi, waxaana ka dhashay khasaarooyin kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac leh. Laakiin hadda sida muuqata deegaanada Jubbaland waxaa ka muuqata in arrintaasi feejignaan xooggan laga gelayo. Hay'adda sirdoonka waa hay'adda sirdoonka maaliyadda ee Jamhuuriyadda Turkiga loo yaqaano Mazak iyo xarunta warbixinada maaliyadda ee loo yaqaano ama Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya loo yaqaano FRC ayaa waxa ay Ankara ku kala saxiixdeen heshiis isfaham oo muhiim ah. Heshiiskan ayaa ku qotomo wada shaqayn dhexmara hay'adaha sirdoonada waa sirdoonka maaliyadeed labada dal, kaasi oo lagu golleeyahay adkeynta xiriirka saaxiibtinimo iyo wada shaqaynta labada dowladood ee Soomaaliya iyo Turkiga. Heshiiskani ay saxiixeen labada dhinac iyo sidoo kale waxa mid la iskaga kaashanayo ka hortagga dambiyada maaliyadda, lacag dhaqidda iyo sidoo kale la dagaalanka maalgelinta argagixisada sida ay ku doodayaan dadka falaqeeya ama sida ay ku dooday wasaaradda maaliyadda. Noocyada sirdoonka maaliyadda ee labada dal ayaa iska kaashan doona si waafaqsan sharciga ka hortagga lacag dhaqidda iyo la dagaalanka maalgelinta argagixisada ee dalalkooda, ururinta, horumarinta, falaqeynta iyo macluumaadka iyo xogaha la xiriira dambiyada maaliyadeed ee ka dhaca labada dal. Sidoo kale labada dal ayaa isweydaarsan doona khibradaha iyo waayo aragnimada la xiriira la dagaalanka dambiyada maaliyadda, gaar ahaan ka hortagga lacag dhaqidda iyo sidoo kale la dagaalanka maalgelinta argagixisada. Heshiiskan ayaana sare u qaadaya isla markaana xoojinaya tallaabooyinka iyo qorshayaasha ka hortagga dhammaan dambiyada maaliyadeed ee ka dhaca labada dal. Labada hay'adood ayaa si xor ah oo isu dhaafsan doona macluumaadka iyo xogaha iyadoo la raacayo mabaadi'da isweydaarsiga macluumaadka ee u dhexeeya hay'adaha sirdoonada maaliyadda iyo sidoo kale kan caalamiga ah, ayna ku jirto isweydaarsiga warbixinta dhaqaaqyada shakhsiyadda leh ee loo yaqaan iyo sidoo kale xogaha kale ee quseeya si loo aqoonsado loolana dagaalamo dambiyada maaliyadeed iyadoo loo hoggaansamayo sharciyada iyo xeerarka caalamiga ah. Xarunta warbixinada maaliyadeed iyo hay'adda sirdoonada maaliyadeed ee Jamhuuriyadda Turkiga ayaa dhisi doona awoodooda, waxayna ka qayb qaadan doonaan barnaamijyo tababar wadajir ah, aqoon isweydaarsi iyo sidoo kale dadaallo kale si loo dhiso awoodda loona horumariyo xirfadaha dhaqaalaha waa shaqaalaha hay'adaha sirdoon ee labada dal. Heshiiskan ayaa muhiim ah ilaalinta shacabka waa shabakadaha sirdoonka maaliyadeed ee xoojinta xiriirka hanaanka la dagaalanka dambiyada maaliyadeed, nabadgelyada iyo sidoo kale sare u qaadista kobaca dhaqaalaha ee labada dal. Munaasabadda lagu kala saxiixay heshiiskan ayaa waxaa goobjoog ka ah safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Turkiga Ambassador Fatxuddin, agaasimaha xarunta warbixinada maaliyadeed Marwa Aamine Maxamed Cali iyo sidoo kale agaasimaha hay'adda sirdoonka maaliyadda ee dalka Turkiga Master Xasan Keymak ninka loo yaqaano. waxaan nagala socotaa daawada nuxurka wararka nagu soo biro kamid noqo saaxiibada nagu xiran muuqaalka la garay shirkado la sii wadaaga asxaabtaada aragtidana sidoo kale qaybta faallada nugula baa ku maasan tahay daawashada iyo sidoo kale la socodka wararkeena had iyo jeer ba halkan waxaan kugu soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya caalamka. Nabadgelyo.